isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa galabta booqday garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo booqashada madaxweynaha ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay socotay ciyaar xiiso leh oo u dhaxaysay kooxaha Hegan iyo Guulwade waxaana madaxweynuhu uu ku hakaday halkaasi si uu u daawado ciyaarta oo ahayd mid xamaasad leh madaxweynaha ayaa qaybtii labaad ee ciyaartu markii ay bilaabmaysay waxa uu mid u gacan qaaday ciyaartoyada labada kooxood iyo gorsoorayaasha ciyaarta dhexdhexaadinayay isagoo oo bogaadiyay dadaalkooda la xiriira isdhexgalka bulshada iyo kor u qaadida ciyaaraha gobolka waxa kale oo madaxweynuhu mid u salaamay qaar kamid ah dadweynaha u soo daawasho tagay ciyaarta madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday in la dhameystirayo dhismaha garoonka oo wali qaybo kamid ah yihiin qabyo isla markaana la kordhin doono goobaha bulshada muhiimka oo ah sida goobaha ciyaaraha